bangiga amal ayaa kulan ku saabsan aqoonta maaliyadeed u qabtay dhalinyarada ku nool gobolka Bari sida faahfaahinta warkan uu sii ambaqaadaya wariyaheena halkaasi nooga soo warama Cabdiqani Axmed Maxamed Boos. maamulka bangiga amal ee gobolada Bari iyo Sanaag Bari ayaa kulan u qabtay dhalinyarada gobolka Bari. kulankan oo ahaa kulan fagaara ka hadal ah ayaa waxa ciwaan looga dhigay sirta ay hantilayaashu ku hodmeen. mawduucanna waxaa soo jeedinayay tababara Cabdifataax Maxamuud Ducaale Cajab oo ah madaxa xiriirka bangiga amal. kulankan ayaa waxa ka qayb galay ku dhawaad 200 oo dhalinyaro oo ka kala socday ururada dhalinyarada kala duwan iyo jaamacadaha macaahidda iyo waliba hay'adaha kale. kulankan oo ka dhacay hotel Gacayte ee magaalada Boosaaso waxa ugu horeyn furay madaxa suuqaynta ee bangiga amal ee gobolada Bari iyo Sanaag Bari Muuse Siciid Xasan. aynu maanta tababarka noocan qaadanay inaynu marka koowaad ku fakaro inaynu bilowno sidii aynu processka u bilaabi lahayn. laana waxa qofka saboolka isaga doortay qofka qanigaana isaga doortay marka talaabadii koowaad aan qaadno aynu saboolnimada uga bixi lahayn oo maxay tahay aan samaysano account xisaabeed oo wax dhigi karo aan ku bedelo fikirka ah waxaan arkay maalin oo raax waxay leedahay ku bedel sidee shaqo u helaa waxaad ku bedeshaa sidee baan 10 shaqo u abuuraa 10 shaqo sidee u abuuraa haddaa ku fakarto inaad 10 shaqo abuurto halkaad ku fakir lahayd see adigu shaqo u heshaa waxaad gaaraysaa hadaf ah inaad maskaxdaadu at least ay ka baxdo kofarkii aad see shaqo u helaa la 10 qof aad u fakiraysaa inaad shaqo u abuurto. maamulaha bangiga amal ee gobolada Bari iyo Sanaag Bari Dr. Maxamed Faahiye Ciise oo isaguna ka hadlay kulanka ayaa ku dhiirigeliyay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan tababarka. liqaadka noocaan ahna kulay intii muddo ahayd bangigu waa waday waana wadi doona ujeedaduna wax kale maaha waxaan rabnaa in bulshadeena aynu wadaagno thaqaafa idkhaariya ama falsafad ama aragti wax kaydsi waxaan la dagaalamaynaa oo ka hortegaynaa in qofku xoolihiisa ama hantidiisa uu ku ciyaaro waxaynu ka shaqaynaynaa inuu qofku hormaro adduunkiisa walibana ka hor aakhiradiisa aan rajaynaya ilaahay dankiis inuu dhammaanteenba ka wada faa'iideysan doono aad baad u mahadsantihiin mar labaad ka soo qaybgalkiina madaxa horumarinta ganacsiga bangiga amal ee gobolada Bari iyo Sanaag Bari Jaamac Ciise Maxamuud ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay kulanka iyo tababaraha oo Cabdifataax oo waqtigiisa ina siiyay runtii waxaan is leeyahay ujeedku wuxuu yahay in bulshadeena iyo dhalinyaradeenu fikirka lagu baraarujiyo in wax la abuuri karo dabcan waad dareemi kartaan bangiga amal hadduu hadaf kale leeyahay dabcan wuxuu la xiriiri lahaa dadka dhaqaalaha leh ganacsatada waaweyn iyo maalqabeennada laakiin hadafku wuxuu yahay in bulshada wax lagu celiyo. qaar ka mid ah ardaydii ka qayb gashay kulankan ciwaanka looga dhigay sirta ay hantilayaashu ku hodmeen waxa ay si weyn uga mahadceliyeen bangiga amal oo dhalinyaratan aqoon badan siiyay. waxaan soo dhaweynayaa marka hore bangiga amal international fursadda qaaliga ay noo siiyeen inaan tababarka ka faa'iideysano oo tababaruhu waxa weeye khibradiisa uu nala wadaago oo waxa weeyaan ay maantay dadku nin walba uu aaminsan yahay inuu wax noqon karo wax qaban karo. magacay ku bilaabo Safiya Abdullaahi Cali baa leedahay waxaan ka soo qayb galay tababarkan macallinkayga ay Ustaad Cajab waan mahadcelinayaa iyo dhammaan macallimiinta joogtay macallimiintaas oo in badan tababar badan ku qayb qaadanay caaw laga bilaabo waxaan u maleynayaa inaan ma gashtay inaan maal qabeenahay waan rajaynaa inaan noqdo maal qabeen dhammaan oo rajaynaa shacabka. bangiga amal ayaa inta badan ka qayb qaata dhiirigelinta dhalinyarada iyo waliba kobcinta dhaqaalaha. Cabdiqani Boos SBC Boosaaso.